Iran ayaa la sheegay inay adeegsatay dayax-gacmeed sirdoon oo Shiinaha uu sameeyay oo lagu magacaabo T-01B intii lagu guda jiray dagaalka, iyadoo dayax-gacmeedkan la sheegay inuu sare u qaaday awoodda weerar iyo xog ururin ee Iran. Sida ay muujiyeen dukumiintiyada la helay, dayax-gacmeedkan ayaa loo adeegsaday kormeerka saldhigyada militariga oo muhiimka u ahaa Mareykanka kuna yaallay Bariga Dhexe, isaga oo soo saaray sawirro iyo macluumaad fududeynaya weeraro sax ah in lagu beegsado saldhigyada. Xogtan ayaa la isticmaalay ka hor iyo kadib weeraro ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaallada, sida ay gacan uga geysatay qorshaha weerarada iyo qiimeynta khasaaraha ka dhashay dagaalka. Trump iyo Netanyahu ayaa diidmo adag kala kulmay Yurub kadibna maanta waxaa soo baxday Rafael Grossi oo ah agaasimaha guud ee wakaaladda tamarta nukliyeerka ee caalamka, kaas oo hadda si cad garabkooda uga baxay muddo uu taageerayay qorshaha Trump iyo Netanyahu ee ka dhanka Iran. Waxa uuna yiri Iran ma aysan joojinin heer ay toddobaadyo ama bilo u jirtay inay hesho hub nukliyeer ah, mana aha wax suurtagal ah in militari ahaan lagu joojiyo barnaamijka nukliyeerka ee Iran.